soo dhawaada gabadhan u jeedinaya aabaheed waa darbijiifyaal waaweyn waxaan aragnaa gabadha yar inay cunayso cunno ay qashka ka heleen maadaama aabaheed ku dhahay haddii kale gaajo u dhimanay haddii kale cun isla markaasna waxaa soo muuqanaya midoo muuqaal iska duubayso aabaha wuxuu ku dhahaa mar way iga raali noqo xoogaa yaroo lacaga misii kartaa gabadhiida cunno uga soo gato isla markaasna iyada qorshaha ku soo dhacayo haddii ay gabadhan yarta muuqaal ka duubato inuu u kala kacayo leeg badan ay helayso waxay ku dhahaysaa waa idin caawinaa laakiin gabadhaada xoogaa wejiga wax u marmari isaguna sidii loo sheegay waxa bilaabaa gabadha inay cunadii wejiga u mariyo si ay ugu ekaato qof duruufaysan kaamirada intay furatay dadkeedu waxay ku dhahaysaa sida ay ugu taqaaniin aniga waxaan ahay qof mar walba sadaqada baxsado sidaas darteed maanta waxaan ibaraa gabadhan yarta way duruufaysan tahay anigana waxaan rabaa inaan lacag ku sadaqaysto kaamirada intay damisay gabadha waxay ku dhahaysaa saaxiibaday waxay jecel yihiin dheesha marka waa inay ciyaartaa inay diiday isku dayaysaa laakiin aabaheed wuxuu u sheegay inaysan lacagta dhaafsiin midaana maadaameysan aqoonin sida loo dheelo gacmaynu nuuxinay iyada dhiil ka wado iyaduna mar kale dadkeeda waxay ku dhahaysaa ma u jeediinoo lacag badana baxsanaa marka muuqaalkan kasoo hagar baxa leeg saara waxaan aragnaa gabadha yar iyo aabaheed inay ku faraxsan yihiin lacagta oo aysan waxaan waxba u arkin hal mar midaan waxay bilaabaysaa inay lacagteeda dib u ceshato gabadha yartaana waxay usoo bixinay $1 halka doolarna way ku kala tuurtay si fiican maysan u siin nasiib daradeedana halkii $1 aabaheeda kasii qaadanayo intaas kadibna lacagtii wuxuu kusoo gatay cunno gabadhiisana wax ma ka siinayo dilaayo markii ay weydiisay cunada wax miiga siinaysid miyaa wuxuu u sheegaa inay cunto cunadii ay xoogaa ka hor qashinka ka helaayeen haddii aysan cunadaas ka helina inay baxdo oo ay qashinka mid kale ka soo raadiso wax yar kadib dooradii markii la gaaro waxaan aragnaa inay cunno kale raadsanayaan midaan aabaheed waxay weydiinayay ka warran haddii aan anigu galo iskuulka dowladda hadhowna si aan adiga kuu caawiyo wuxuu taagan yahay ma waxaad rabtaa inay iskuul aado aad iga tagto sida hooyada iga tagtay camal xoogaa kadib iyadoo meeshaan baahay la fadhisaa waxaa u imaanaya midoo tiktoka kasoo daawata muuqaalkii laga duubay intay ka naxday iyadu waxay ku dhahaysaa isku nixin aniga ma raba in adiga ku dhibaateeyo waxay aragtay inay gacanta ugu xiran tahay wax ay iyadu mar hore ugu xirtay anaguna waxaan ogaanaynaa inay hooyadeed tahay midkaana markuu meesha soo gaarana wuxuu arkaa middan inay tahay xaaskiisii hore gabadhiisa intuu shilimaad u dhiibo wuxuu u sheegaa inay rooti soo gado midaana wuxuu ku dhahaa sidii ku awooday inaad gabadheeda la hadasho waxay u sheegaysaa sidoo kale inay iyadana hooyadeed tahay wuxuu ku dhahaa waxaan arkaa inaad isbedeshay oo kuu kala kacday nolosha ku nuurayso marka ka warran haddii aan mar kale nugu soo biirto labadeena laakiin iyadu way diidee midaan way soo laabanaya maadaama ay qoweyda wixii uu aabaheed u diray isla markaasna midii hooyadeed ahay waxay bilaabaysaa inay la cararto waxay weydiinaya haggaa ii wadaa aabahe inaa ka taga ma rabi adiga xitaa ma ku aqaani markii ay u sheegtay inay hooyadeed tahay midaan ina keliya ka soo haray maadaama aabaheed ku dhahay hooyada way dhimatay hooyadu waxay bilaabaysaa inay uga sheekeedo sida ay isku dagaaleen aabaheed sidoo kale waxay u sheegaysaa markay isbitaalka ku jirtay oo iyada ka qaadanayay isagii u soo laabteen maadaama ay rabtay inay la hadasho gabadhiisa waxa uu sheegay inay qoftaas ka soo tagto laakiin iyadu waxay dhahaysaa aniga wadanaayo aabaheed waxay weydiisay iyadu maxaa beenta iigu sheegtay oo u dhahdo hooyada way dhimatay iyadoo rabtay inay su'aalo badan weydiisana meesha waxaa soo gaarayay midkoo askariya maadaama ay hooyadu mar hore u wacday ugu dambayn gabadhiisa wuxuu ku dhahaa iga raali noqo maadaama aan ku noqon aabbo wanaagsan hadalkiisa markii uu dhammaystana midkii askariga ayaa meesha ka wadaayo wax yar kadibna waxaan aragnaa midaan inay cunayso buskud caadiya maadaama ay warqadiisa qashinka ku dhex arki jirta keliya hooyaduna waxay ku dhahaysaa maanta kadib waxaa awoodi doontaa inaa soo dhawaada gabadhan shaqaalaha iyadoo meeshaan xaqiisay hal mar waxay arkaysaa miyaaradan oo nadiif ah markii ay maagto inay isku fiiriso waxay is arkaysaa iyadoo u kala kacsantaha oo lacag badan tirinayso niyadday waxay iska dhahaysaa haddii aan si fiican u shaqaysto waxaa laga yaabaa riyadan aan miyaaradda ka dhex arkaya inay ii rumowdo iyadoo faraxsanay meesha isaga tagtay midaan kaloo meesha ku dhuumanaysana iyadana waa shaqaale qaybta dharka qaabilsan miyaaradda intay isku fiirisay waxay is arkaya iyadoo xabsi ku jirto arrintaasna aad ugu welwelay dhidid noola ka imaanayo intay xanaaqday dhagax weyn soo qaadanaya iyadoo rabto miyaaradda inay jibiso maadaama ay wax xun ku aragtay iyadoo jibi rabtana waxaa ka istaajinaya arrintaas midkoo beeraha qaabilsan oo isaguna shaqaale ah wuxuu ku dhahaa orod meesha iskaga tag mawaalantaha ninka meesha iskale maanugu dire si kadisa oo miyaaradda wuxuu ugu dhex arkaa hal mar isaga iyo midii oo hadda burinayo oo dabaq wada dhisaayo wuxuu bilaabaa inuu miyaaradii dhan qaato maadaama uusan rabin arrintaa inuu qof kala arko intaas kadib waxaan aragnaa midii miyaaradda jibi rabtay oo aruurinayso dharka ninka booskaa si ay u dhaqdo hal mar jaagad dharka ku jirtay waxay ka dhex helaysaa lacag aad u badan iyadoo wadda lacagta tirinteeda waxaa u soo gelaya midii kaloo shaqaalaha ahayd waxay ka codsanaysaa inay shaqadeeda sii qabato maadaama ay rabto inay suuqa ka soo laabato markii ay baxda midaan waxaa ku soo dhacayo qorshe aan caadi ahayn bahashii ay saaxiibadeed u dhiibtay jeebkeeda lacagtii qaar gelinaysaa qaarna iyada qaadatay intaas kadib waxaan aragnaa ninkii booska ahay oo lacagtii raadinaya xitaa jaagadii wuu ka dhex baaray midaanu inta u waco wuxuu ku dhahaa maanta dhan lacagteedii raadinaya waana waaye ee adiga ma aragtay waxay taagan tahay waa ka xumahay lacagtaadii maana arkin laakiinse hal waxaan arkay ee ku sheegi karaa gabadha kale ee annakana la shaqayso ayaanta waa ka shakiyay lacag badan ay qarqarinaysa ma laga yaabo lacagta inay qaadatay inta u waco iyadana wuxuu ku dhahaa jaagadan lacaga iigu jirtay marka ma ku aragtay adiga midaana hal mar waxay iska soo jaraysaa hawareysana jeebkeeda baar laakiin iyadoo jeebkeeda wax maysan ku ogeyn markii ay baar maagtana waxay arkay inay lacag ku jirto booska wuxuu bilaabaya inuu lacagta ka dafa iyadoo weliba dhehaysa ani waxa kama ogi lacagta sida jeebkayga ku gashay isla markaasna go'aan hore ka qaadanaya isagoo shaqada iyo guriga ka buriyey
xoogaa kadib iyadoo bixitaan isku diyaarinaysay waxay arkeen midii kale oo taleefanku hadlayso wayna ka dhuumanee annaguna waxaan ogaanaynaa inay la hadlayso midkii shaqaalaha ee qaybta beeraha qaabilsanay labadooduna way isla shaqaystaan maadaama ay lacagtii hore si wada jira u cuneen waxay ku dhehaysaa midka booska ayaantaa lacag badan oo wataa lacagta meesha u dhigtaa soo ogaanaya kadib labadeena lacagta safara ku aadaynaa midaana maadaama qorshahooda dhan maqashay intay soo baxday midkii booska ay u timaaday wax walbana way u sheegtay kadib boosku intuu soo baxo wuxuu iska dhigaa wax lacagta meeshaan gashanayo laakiin jeebkiisa uu ku ceshanaya midaana way u jiiday markii oo baxan intay soo dabamaraysay meesha baaritaan ugu dhaqaaqda laakiin wax dhan ma arkayso isla markaasna midkii booska ahay oo lacagtii wadaa intuu soo galo wuxuu weydiinaa lacagta miyaa raadinaysa iyaduna waxay taagan tahay wax ma raadinayn ee xoogaa meeshana titiraaye wuxuu ku dhahaa warkii aan kuu soo koobay iga dhegeyso aniga shaqada keliya makaa burin ee booliskana waa kugu cay bannaankii kugu sugayaan midkii qaybta beerta qaabilsanaa intuu u waco wuxuu u sheegaa qoftan inuu bannaanka u bixiyo booliska u dhiibo iyaduna waxay taagan tahay aniga keligii ma jabaayey ee haalila jabo midkan garabka iga taagan qorshaha dhan uu igula jiray ee marka isagana hala buriyo midka booska oo cusbada ku kakacdana wuxuu u sheegaa inuu hadalkeeda dhegeysanayna guriga isaga tagto midkan wuxuu islaayo oo malaynaa booska isu qabiilaatiin laakiin nasiib xumo waxaa lagu dhahaa boorsadaada qaado gurigan iska bax daacadnimadoo guulaysatana midaan waxaa lagu dhahaa kuwaan lacagta isku dayeen inay xadaan adiga iskale hadda kadib intaasna wuxuu maadaama keliga ii shaqaynaysa hadda kadib mushaarka waa ku kordhiyey iyadana waxay u muuqataa miyaaradda riyaday ku dhex aragtay inay u rumowday sidoo kale midaan riyadeedu si kal iyo laabhay ugu rumowday laakiin nasiib xumo saaxiibkan riyadiisa waa ka fashilantay muuqaalkuna taas oo haya leegnosa